2016 shabaabkii la soo qabqabtay in waxna la sii daayay sabab lagu sii daayayba waxna jeelasha wali ku jiraan iyagoo wada dil ah sababta loo dili waayayna in badan baanu ka wada hadalay in badan baanu isku daynay hawshaas inay dhacdo in badan baanu isla eegnay habka ay wax ku suurtagelayaan laakiin nooma ay suurtagelin sababtay u suurtageli weydayna shacabka reer Puntland baa looga baahan yahay inay raadiyaan waxaan hortiina maanta ka qirayaa qaybo badan oo kamid ah 26 kamid ah waxaa loo qaaday xamar iyada oo dawladda lafteedu isku khilaafsan tahay inaan la qaadin hay'adda UNICEF iyo international community-ga waxa la yiri waxa la sameeynaya dhaqan celin wax la yiraahdo loo sameeynaya waxa la geynayaa meesha la yiraahdo xamar elman meel la yiraahdo anigu gaaladii waxaan ku war dhaqan celin hadaad sameeynaysaa inta jeelka agtiisa guriga nooga dhistaa iyaga iyo kuwa kale akhlaaqad xun ee dhalinyarada ah aan ku dhaqan celin halkaan nooga dhis iyadoo noo dhowdahay baa gadaal laga laabtay dabeedna waxa dhacday oo ku war helay warqad baa la qoray 26kii xamar baa la geeyay qayb kamida oo 48 qof ah magaalada Garowe ee 4 jeer maalinkii ku qubaystaan 3 jeerna wax cunaan shabaabkii rag laayeen waa hayaan dhaawacayna waa hayaan sababtay ku dhacday wala isweydiinaya waana laga xisaabtami doonaa insha Allah waxaad garan kartaan dagaalkii shabaab markii la soo afjaray markaan amniga ka hadlayay saraakiishii iyo wasiiradii markaan ka wada shaqeynay qorshaha iyagu wuxuu ahaa in qandala iyo calawle la geeyo iyadoo laga bilaabayo togan jacayl miyuha iyadoo laga bilaabayo laakiin la iskuma afgaran sababta shabaab imka dalka ugu soo kordheen ee xamar uga qaylinayso inagu horey uga qaylinay horta waa taa jaanis baynu siinay markay 30 ka hayeen baynu la dagaalami weynay markay 50 ka hayeen baynu la dagaalami weynay waxay ahayd dayacaad dhinaca dawladda ka timi aniguna mas'uuliyadeeda aan leeyahay oo aan iska saaray waxyaabaha aan leeyahay hana laga cafiyo waa arrimahaas kamida galgalaad ogtiin wixii af urur ka dhacay baad ogtiin waxaad ogtiin in ciidamo far badan Allahu naxariistay lagu laayay meesha waxaad ogtiin deera inaanay deera u hardiin waa waxyaabihii Sheekh Mukhtaar uu ka hadlayay weeyaan waxaan leeyahay hawsha iyada ah amniga dalku waa fiican yahay laakiin waxaan qirayaa inuu madaxweyne ku xigeenkii heerkii la filayay ee laga filayay dawlad 20 jir ah amnigeenu inuusan ahayn dhaqaalaheenu uusan ahayn